السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال meel waliba aad joogtaan kusoo dhawaada war waxaynu idinkaga hayno guud ahaan dalka iyo dibadaba. qodobada aynu wararka kusoo qaadan doono waxa kamid ah khilaaf siyaasadeedka soo kala dhaxgalay Dani iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud kadib magacaabistii ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoowe ayaa wareysi bixiyay kadib markii baraha bulshada ay qabsatay in uu xanuunsan yahay. sidoo kale wararka caalamku waxay idinkaga haynaa dagaalka Russia iyo Ukraine waxaana la soo sheegay in Ukraine ay gacantu gasho u dhowdahay Russia. qodobadaas iyo qodobo kale ayaynu halkan ku faahfaahin doonaa. saaxiibayaal kusoo dhawaada channelka oo subscribe noo saar like noo saar asxaabtaadana la sii wadaag. mar kale soo dhawaada saaxiibayaal haddii aynu ku bilowno khilaaf siyaasadeedka soo kala dhaxgalay Dani iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa la sheegayaa in khilaafkaasi uu salka ku hayo magacaabista ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre kadib markii uu shaaciyay in Saciid Cabdullaahi Dani uu khasaaro weyn kala kulmay ololihiisii doorashada sidoo kalena uusan wax guul ah soo hoyin. baarlamaanka Puntland ayuu ka sheegay Saciid Cabdullaahi Dani khasaarihii ugu weynaa ee isaga soo gaaray kadib markii uu kala qaaday laba qaybood oo kala ah in doorashadii uu ku guuleysan waayay sidoo kalena uu soo hoyin waayay Puntland ra'iisul wasaare. haddaba khilaafkan siyaasadeed ee soo kala dhaxgalaya Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu salka ku hayaa in Saciid Cabdullaahi Dani uu doonayay in isagu ra'iisul wasaare laga dhigo balse Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu sheegay in lagala tashan magacaabista Xamse Cabdi Barre oo haatan ah ra'iisul wasaaraha magacaawan. haddaba waxaynu eegi doonaa khasaarihii ugu weynaa ee soo gaaray Saciid Cabdullaahi Dani intii uu ololaha ku jiray. Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu olole u galay in uu madaxweyne ka noqdo dalka Soomaaliya. lacago aad u tiro badan ayaa kaga baxay xildhibaanadii uu isaga watay kadib markii wareegga koowaad uu kaga gudbay cod aad u tiro badan. waxa uu sheegay in lacago aad u tiro badan ay kaga baxeen xildhibaanadii isaga doortay sidoo kalena uu ku haray wareegga labaad. haddaba markii wareegga labaad uu halkaasi kaga haray waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud ay ballan ay kala qaateen hoolka ololaha doorashada ayaa waxa uu ku sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu ballan qaaday in ra'iisul wasaare uu ka dhigi doono haddii xildhibaanadiisii uu isagu ku wareejiyo. waxaynu ogeyn in Xasan Sheekh Maxamuud uu markaasi garab weyn ka helay Saciid Cabdullaahi Dani oo siiyay xildhibaanadii isagu uu watay. kadib waxaa doorashada ku soo baxay Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan ba madaxweynaha Soomaaliya. kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud loo dhaariyay Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu filanayay in uu noqon doono ra'iisul wasaaraha dalka. xitaa haddii uu isaga uu noqonin ra'iisul wasaaraha dalka waxa uu doonayay in shakhsi Puntland kamid ah uu ka dhigo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya. haddaba khilaafkan siyaasadeed ayaa waxaa dhaxda imaaday kadib markii Axmed Madoowe uu ku taakeeyay Xasan Sheekh Maxamuud in ra'iisul wasaare uu ka dhigo nin ka socdo Jubbaland sidoo kalena uu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka 4 sano ee soo socto. haddaba khilaafkan siyaasadeed ee soo kala dhaxgalay Saciid Cabdullaahi Dani iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku sheegay in uu khilaafkaasi uu dhexda kaga jiro madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. haddaba arrintan ayaa noqonayso arrin iska hor keenaysa dhammaan xubnihii ku tartamayay ama isla jiray doorashada sidoo kalena dowladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dibadda u saaray. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo magacaaban ayaa khalkhal ku jira in ansixintiisu ay xildhibaanada qaar ay ka soo qayb gelin. waxaynu ognahay ilaa haatanba in la ansixinin ra'iisul wasaaruhu sidoo kalena waxa uu la kulmay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre labada gole ee baarlamaanka madaxdoodu sidoo kalena waxa uu weydiistay in ay ansixiyaan balse khilaafkaasi darteeda ee Saciid Cabdullaahi Dani oo sheegay in lagala tashan magacaabista ra'iisul wasaarahani ayaa Xamse Cabdi Barre ku noqon karto caqabad aad u weyn maadaama ay jiraan in Puntland xildhibaanadoodii ee la safaraa Saciid Cabdullaahi Dani ay ansixintaasi aysan gacan ku siinin. lama ogo in ay ansixin doonaan ra'iisul wasaarahani maadaama khilaafkani aad u badanayo sidoo kalena la soo sheegayo khilaafkani in uu caqabada ugu weyn ee hortaalo ay tahay in Xamse Cabdi Barre ay isagu
ay qabsan doonto. Xamse Cabdi Barre oo ah ra'iisul wasaaraha magacaaban ayaa haatanba waxaa ansixintiisii loo ballansan yahay maalinta Arbacada ah. wixii ka soo baxana halkan ayaynu kula wadaagi doonaa. waa tahay saaxiibayaal, haddii aynu u gudubno dhankaas iyo gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe ayaa waxaa la soo sheegayaa in uu wareysi ka bixiyay arrinta ahayd inuu xanuunsan yahay oo baraha bulshada qabsatay 24 saacadoodkii la soo dhaafay. Sheekh Aadan Madoobe oo sheegay in uusan wax xanuun ah uu haatan bahaynin, balse Nairobi ee dalka Kenya uu u tagay in uu xanuuno yaryar ah oo isaga haystay halkaasi uu kaga qaato daawooyin, balse xanuunkani waa wax jiro. sidoo kalena waxaa booqday gudoomiyaha baarlamaanka dadyow kala duwan oo dawladda ka tirsan, waxayna sheegeen in ilaa haatanba uu caafimaad qabo. sidoo kalena geeridii ee la isla dhaxmarayay baraha bulshada laguna sheegay in Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha baarlamaanka uu geeriyooday in ay waxba kama jiraan ay tahay oo ay wadaan mucaarad doonayo in ay ku carqaladeeyaan gudoomiyaha baarlamaanka. sidoo kalena dawladda cusub ee haatan laga galeelayo in ay fashil kaga dhigaan. waa sida ay yiraahdeen qaar ka mid ah dadkii la kulmay Sheekh Aadan Madoobe. haddaba Sheekh Aadan Madoobe ayaa waxaa laga sugayaa in ay ansixiyaan maalinta Arbacada ah, dibna uu soo laabto dalka ayna ansixiyaan ra'iisul wasaarahani cusub. walow aynu horey ku soo sheegnay in arrintani ay khilaaf siyaasadeed ay ka dhex jirto halkaasi ansixinta ra'iisul wasaaraha. haddaba Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha baarlamaanka ayaa isaga mar hadlayay waxa uu sheegay in uu caafimaadkiisa taam yahay, sidoo kalena uu diyaar u yahay in uu dib ugu soo laabto wadanka, sidoo kalena shaqadiisii waajibaadkeeda ahayd uu guto. saaxiibayaal, intaasi haddii aynu kaga gudubno dhankaasi wadamada caalamka, dagaalkii u dhaxeeyay Russia iyo Ukraine ayaa waxa uu marayaa qaybihii u dambeeyay, maadaama inta badan Ukraine wadankeedii ay la wareegeen ciidamada Russia. waxaana la soo sheegayaa in Ukraine ay ku dhowdahay in ay gebi ahaanba isu dhiibto Russia, maadaama laga awood badiyay, sidoo kalena magaalooyin waaweyn oo istiraatiiji ah laga qabsaday. dagaalkani ayaa ilaa haatanba waxa uu soconaya muddo wax ku dhow sanad, waxaana la sheegayaa in dagaalkaasi ilaa haatanba Russia ay diidan tahay in la xaajoodo, sidoo kalena ay doonayso in gebi ahaanba Russia si xoog ah ay gacanta ugu Ukraine si xoog ah ugu dhigto. intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa saaxiibayaal, war waxaynu idinkaga haynay guud ahaan wadanka iyo dalkaba. intaan warkan war lamid ah ku kulmi doono. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.